بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هي قالية صوماليات ميلو الباجوكتان كسو دوادا كنالكينا قرحينتا كفائيدينتا إسدقالينتا وحيالها إذن كنتو سنجروا والله هي قالي لاشين فهموا واي سو نقد إلهي سوكا يسوع عليه أنه النبض الحمد لله رب العالمين. هذا أبا إذن سلامة يا ميلو الباجوكتان سو دواد إذن كما دالايو مرقف كان سبسكرايب كإيسار سبسكرايب كإيسار وكا هدلينا تاس مانت وحير قفكي لايكتا عن إيسار جرن إيسار ولا لهيغا قاليا إلا سعودة كنال كيو كحرن إلي رقليا إلا سعودة آد بومات سنتين ولا لهيغا قالي سبسكرايب كواد إيسارتين لايكتنا هاي لدافنا بإذن الله الكريم. هلو maanta waxaan ka hadlaynaa waxba idin tusin maayo barkee qofka mar maalmo isku daalaya maanta ina idinka wax ii sheegtaan raba barnaamijka idinka iska leh idinkaan su'aal idin weydiinaya inaa wax ii sheegtaan raba inaa iga qoslisaan raba inaa waxaan rabaa aad wax ii kordhisaan inaa waxaan rabaa shacabkayga aan maanta barnaamijkan aan ka sugayaa jawaabahooda fikradahooda say yihiin say idin la tahay waxyaalaha aan idin weydiin doono biidn illaahi kariim walaalahay qaali soo dhawaada. maanta waxaan ka hadlaynaa gabar baa shacabkayga ka mid ah hadda ka hor ii sheegtay hadda ka hor kuman ahaan iigu soo qortoo ku qoslay aad baan ugu qoslay marka waxaan rabaa wax jiro waaye waxa jira idinka say idin fikirkiinu idin leeyahay say idin la muuqato inaa ii sheegtaan aan rabaa walaalahay qaali. waxaan ka hadlaynaa maanta wax jiro waaye wax dumarku ama ha isdareensiiyaan ama yaysan isdareensiin wax jiro oo qof walba dumara xitaa ninka ragga ah maskaxdooda ku soo dhaca waaye noloshay ka mid tahay. marka walaalahay qaali bismillah ميولو باجوكتان الله يدين حفظه ولا لا يقال waxaa idin weydiinayaa su'aasha idin weydiinaya waxay tahay maanta muhiima wax walba waxa waay waan ognahay taas oo biqadri illah waxa walba qadarka Allah ku dhacaan wax meesha marays wax lagu qoray waay waxa soo dhan waa la ogyahay gabadha laakiin kumanka ii soo qortay ay idin wadaagaya aan ku qoslo wallahi 10 daqiiqo aan qoslay waxaan ka hadlaynay guurka iyo waxaasaan ka hadlaynay markaas comment ii soo qortay comment waxa waaye u baahan in laga fakaro waaye oo la isweydiiyo oo wax isdhaafsi la wadaago walaalahay qaali fikrad isdhaafi apologize fikrad isdhaafi la ogaado waaye walaalahay qaali. marka waxaan idin weydiinayaa su'aasha ee gabadha ii soo waxaysay idinka idinku celinayaa marka shacabkayga fikradoodana waan qaataa waan soo qaataa waxaan idin weydiinaa waxay tahay walaalahay qaali cambarka maa kala nasiib badan inaa iga soo jawaabtaan aan rabaa su-aashaas aniga fikradeyda waa idin sheegaya cambarka maa kala nasiib badan ilaa cambaradu waa kala duwan yihiin ilaan dumarku waxaa waaye qaar baa 20 guur soo mara qaar baa gabadhii ninka ugu horeeyay ku daqooba qaar baa maxaa la dhahaa weligood aan bakeeri kor u qaadin qaar baan weligood maalin shaqaynin oo loo shaqeeyaa adigu waxaa ku jirtaa kuwa garab rarata oo noloshooda wax loo qaban oo iyagu wax walba qabsada kala duwan yihiin dumarka waa la yaqaan waa su'aalo meesha ku jiro waa adigu waxaa ka mid tahay gabdhaha wax walba ayagu noloshooda soo qabsanaya oo aan soo arkin waxa magaciiseeyay iyo haddii tigid la booking garayna maya xabiibti anaa booking garaynaya joog haddii bakeer kor la maya ha kici saas moo cambarkaaga u nasiib u badan yahay mise waxaa ku jirtaa dadka cambarkooda ilaahay barakeeyo iska barakeysan yahayo garab raratada ah oo ayagu wax walba qabsada noloshooda wax walba soo samaystay wax walba ama umul ha ahaato ama ha shaqayso ama ha daalnaato ayagu naftooda ku tashtay dumarku waa kala duwan yihiin marka inaa isu kala sheegtaan shacabkayga meesha ay ku jiro
oo dumarka waxaan rabaa inaan ogaado cambarkaagu ma nasiib badan yahay mise waa iska macleesh wala yaqaan waa su-aal meesha ku jirta waa dumar baan weligood aan shaqo tegin dumarna inta ay soo qaangaareen waa shaqaynaya waa ilmahooda ayagaa soo korsaday ayagaa wax koolkooliye iyo magaciisii ma aysan arkin ayagaa iskolkoolinaya ikolkoolkoolisoy kalgacali waraabisoy kashkiya laabtaydii wax soo dhahay ma jiraan ayadaa isgu heestoo tiri kashkiya laabtaydii adaan duunka ku jeclahay ayadaa isku haysta oo runaa idii sheegaa mise been meesha runtaa taalla ayadaa isku haysta oo niyadeeda dhisata oo kor isku qaada oo dadaasha oo magaciisa marka ma taasaa tahay mise waxaa tahay qof loo dadaalo cambarku makala nasiib badan yahay iisoo sheega walaalahay qaali waxaa waaye waxyaala su-aalaha marka isweydiinta leh oo isweydiiska u baahan lagama xishoodo walaalahay qaali anagu cidna caayi mayno cidna meesha micnaha ku jira gabadhaa hadalka ay tiri micnaha ku jira marka micnaha taa gabro walbay u fahantay inaa iisoo jawaabtaanaan rabaa ood comment iigu soo qortaan walaalahay qaali hadda wax aniga haddaa idiin sheego aniga noloshaydii iyo naftii isoo martay waxa kama bedel lahayn waxyaalo xagga waxyaalo yaryar waa ka bedeli lahaa laakiin maanta qofka ahay iga dhigaan walaalahay qaali maanta qofka ahay ee iga dhigeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin cambarkayga waa nasiib xun yahayna ma dhihi karo waa nasiib fiican yahayna ma dhihi karo walaalahay qaali markee waxa aan dib markaan u fiiriyo wixii aan soo maray waxyaalo wax yar maahee waxba kama bedelaan markee waxaan dhihi karaa intaa idin soo hor fariisto waxaan idin dhihi karaa qof isoo caawiyey noloshayda ma jirto hooyaday aabahayna 30 sano ka horay dhintay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin qofkaan maanta ahay wax alla iyo wixii noloshayda isoo maray qofkaan maanta ahay iga dhigan walaalahay qaali 20 jir gabar qurxoon baan ahay xoogeeda qabto ilaahay caafimaad siiyo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin marka waxaad u fahanteen gabadheena walaasheen shacabkayga su-aasheeda waxaad u fahanteen markuu masaga kala nasiib badan ma waxa ahayd qof loo kushkushlayo loo kaco loo magaciisi la koolkooliyoy la dhaho mise adaa isu heesaayo oo koolkooliso isdhahay barnaamijkeena maantaasoo ka hadlaa walaalahay qaali aad baa idiin salaamaya walaashin fahiimo waaye weli waa idinka sugayaa de weli waa idinka sugayaa inaad boqolka ii gaarsiisaan marna idinka quusan maayo waa idinka sugayaa walaalahay qaali meeshaad joogtiinba allaha idin xafido hala iiga soo jawaabo hala ii faahfaahiyo hala ii magaciisiyeeyo hala su-aashaas hala ii soo fasiro qof walba gabar walba say u fahantay iyo noloshiina haddaa ku faraxsan tihiin walaalahay qaali nooc walba ha ahaatee waxaa muhiim ah qofka bini-aadanka ah gabadha walaa wiil qofka wuxuu ilaahay siiyey iyo noloshiisa ha yaraato ama ha weynaato inuu ku faraxsan yahay walaalahay qaali markaas xaaladda aad ku jirto wixii ilaahay kuu keeno iyo wixii aad magaciisay aad ku faraxsan tahay walaalahay qaali markee farxaddu maaha lacag tiro badan adduunyo tiro badan farxaddu runt ahaantii waa wax badan ma qaadato walaalahay qaali iimaankii qaadataa iyo markaa wax yaroo isku celceliso ah haysato walaalahay qaali marka iisoo sheega kommentiyadana sugayaa inaa iisoo jawaabtaan kommentiyadeenaan sugayaa waxa gabadha walaasheenoo shacabkayga ka mida shacab waxaa jira mar walba ila joogo abaar iyo aaran aad ba u mahadsan tihiin shacabkayga wanaagsan igu xiran marka layga taga xitaa ila jooga thank you very much ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay idin xafido meel walbaa joogtaan hadda waa kaas waxyaalaha isweydiiska qofka dadku inay wax isweydiiyaan xitaa waxay ka mid tahay qorxinta markaa wax isweydiiso waxbaa fahmaysaa naftaadaa fahmaysaa markaa naftaada fahanto waa qurux badnaanaysa stress badan baa kaa haraya walaashin fahiimo waaye yaan la iloobin kanaalka cuntada caanihii dahabiga ahaa innaba caadi ma aha
waana midabka xitaa waxay kaaga dhigayaan nacniciina shokolaatiina marka kanaalka kale caanihii dahabiga ahaa romatismiga u fiicnaa ha laga doonto hala fiirsado kana hala ii saaro liketa subscribe-ka hala ii saaro khayr iyo barwaaqa idin kaga tegay ilaahay mar walba ha nala jiro kuwa dembigooda dhaafo ilaahay ha naga dhigo walaalahay Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan walaashin fahimo waaye meel walbaad iga fiirsataan walaashin gambaleelkan ha iloobina gambaleelka hala taabto meel walbaad iga fiirsataan adduunyada dacaladeeda walaashin fahimo waaye waxaa idin leeyahay jiro jooga idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu